بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليك قاليقة وإذا سلامي ميل والبو عالمka aad ka joogtaan iyo sidaad u dhantihiinba kusoo dhawaada channelkayga Cooking Xayaat gacmo furan qalbi saafi ayaan mar walba idinku soo dhaweynayaa fadlan hadaad igu cusub tahay sidoo kale kusoo dhawow walaal channelkayga subscribe saar si aad ila socotidna gambaleelka furo waana mahadsan tahay ayaan ku leeyahay maanta waxaan idin wadaa hadduu rabbiga awood la ii saamaxo afur aad u fudud qof walba uu sameysan karo insha Allah very easy aan kuwig ah biidni illaahi alkariim oo caafimaadna leh walaalahayga qaaliga ah inaba ha yaraatee wax saliid ah kuma aana shiilin ama aan kuma aanan dubin aan iraahdo marka walaalahayga qaaliga ah waxaan rajeynayaa fiidiyogeena maanta in aad uga faa'iideysan doontaan biidni illaahi alkariim mar walba waxaan jeclahay waxyaabo healthy ah in aan idin la wadaago insha Allah idinkana waxaan rajeynayaa haddii aad ka heshaan fiidiyoyadeeda fadlan si share gareeyo walaalihiina si ay uga faa'iideystaan waana mahadsantihiin rootigeeni ugu dambeyn markii aan dhameeyay walaalahayga qaaliga ah sidan ayuu kusoo baxay waad arkaysaan xagga hoose iyo xagga sareba inuu same yahay ama isku mid uu yahay masha Allah golden brown waaye marka walaalahayga qaaliga ah dhexdana waxa uga jira qudrad iyo kaluun insha Allah sida aan u sameeyay step by step waxaan rajeyn doonaa in aad ila socon doontaan hadduu rabbiga awood leh inuu wada saamaxo insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay afurku aad ugu wanaagsan yahay walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa inaad sambuuska iyo burka saliida lagu shiilo aad iska dhaaftaan ama aad iska yareysaan insha Allah oo aad u badan doontaan dhanka ovenka waxyaabaha lagu sameeyo ee qalalan ee haba yaraatee wax saliid ah aan lahayn marka insha Allah iminkana waan kala jareynaa ama waan kala gooneynaa sidaad arkaysaanba laba farood oo kaliya ayaan ku gooyay walaalahayga qaaliga ah waa very soft insha Allah rootigan caruurta xitaa way ku cuni karaan masha Allah sidoo kale dadka waaweyn ee waayeelka ahna isagana ma dhibayo oo way cuni karaan oo waa rooti aad u jilcan masha Allah oo sponge ah dhexdiisana waad arkaysaan inaba wax ceeriin ah ma lahan ama wax cajiin ah masha Allah tabarakallah marka walaalahayga qaaliga ah ka faa'iideysta insha Allah haddana waxaan guda galayaa sidii aan u sameeyay raasabiga aan isku dardaray insha Allah ila socda ayaan idin leeyahay welcome bismillah walaalahayga haddana waan sameysanaynaa waxyaabihii aan isku dardaray awalan waxaan ka bilaabaynaa cajiinka ama burka qasidiisa waayo waxaa la hormariyaa mar walba burka si uu kuugu sii faxo inta aad qudrada karsanaysid ama qudaarta marka insha Allah hadda halkan waxaa ku riday xabad beed ah ama ukun in yaroo milix ah ama cusbo hadba saad u taqaanaan insha Allah walaalahayga qaaliga ah waxaan kaloo haddaan isticmaali doonaa in yaroo sonkor ah isagana sonkor aan badnayn oo waxaan rabaa inuu tastiga ii bedelo masha Allah roodhida dadka qaar waxay jecelyihiin inay sonkor ku darsadaan marka anigana waxaan jeclahay inaan wax yar oo sonkor oo aan badnayn aan isticmaalo insha Allah adiga haddii aadan rabin sonkorta waad iska dayn kareysaa laakiin aniga hadda iskuma badin teaspoon oo labadeeda ah waaye inta aan ku darsaday waxaa ka badan inta aan isticmaalay burka aan isticmaali doono oo waxa waaye burkaan isticmaali doono 1 kiilo ama 1 kg marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah haddana qamiirkii ama yistidii ayaan insha Allah soo furi doonaa oo aan bacda kasoo jeexi doonaa insha Allah intaa waxa waaye qaandada mugeed qaandada hadda iigu jirta halkan oo buuxda waaye insha Allah kiilo bur ayaan ku qasi doonaa hadduu rabbiga awoodda leh ii saamaxo caano yar ayaa hadda ku darsaday walaalahayga qaaliga ah sidaad arkaysaan caanaha ayaan ku qasayaa intaa dabadeed waxaan soo qaatay in yaroo subag oo sixin ah waaye oo aad saafi u ah masha Allah maalintii hore waa anigii idin dhahay subagan waxyaabaha aan u isticmaalo waan idin tusi doonaa insha Allah roodhiyadoo kale ayaa loo isticmaalaa caraf ayuu kaaga dhigayaa masha Allah sidoo kale aad ayuu kuugu guduudinayaa rootigan wuu ku jilcinayaa walaalahayga qaaliga sirta ayaa ku jirta subaga haddii aad ku qastid roodhiyada masha Allah wuxuu kaaga dhigayaa mid aad u qurux badan oo jilcan insha Allah marka walaalahayga sidaa ila socda ka faa'iideysta fikradda yar qofkii aan hore u isticmaali jirin hadda ha isticmaalo ayaan leeyahay insha Allah hal qaanda ayaan isticmaalay aniga sidaad arkayseen marka insha Allah haddana burkeeni ama daqiiqdii ayaan ku shubanayaa sidaad u jeedaanba insha Allah bacdan in yar ayaan ka reebi doonaa oo 1 kiilo ayaa bacdan ku jirta
ama 1 kiilo hadba saad u garanaysaan. marka insha Allah inaan wada qoosho ayaan isku dayaaya in yar oo aan marka u dambeyso ku fidin doono cajiinka ama roodhida ayaan ka reeban doonaa insha Allah. marka walaalahayga qaaliga ah sida ila socda ayaan idin leeyahay meel walbo caalamka aad ka joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad channelkayga. fadlan walaal haddaad igu cusub tahay subscribe ii saar insha Allah. wax lacag ma jooga subscribe-ka just gacanta le dhag ku sii insha Allah meesha guduudan kadibna gambaleelka furo si aad mar walba ila socoto markii aan video soo galiyo lagu dhaho xayaat ama cooking with xayaat video cusub ay soo dhigtay insha Allah. marka walaalahayga qaaliga aad ayaad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad dar ilaahay ayaan idin wada jecelahay kusoo dhawaada channelkayga insha Allah. walaalahayga qaaliga markii hadda aan soo qooshay ama aan soo xashay burkeeni waa kan sidan ayuu ku soo baxay in yar oo saliid oo aan badnayn ayaan korka ka soo mariyay insha Allah. intaa kadibna waan daboolan doonaa si uu iigu soo faxo ama uu iigu soo qamiiro biidnillaahi kariim. inta uu ii soo faxayana waxaan sii sameysan doonaa qudradii ayaan sii karsan doonaa aan dhexda ka gelin lahaa hadduu rabbiga awoodda la ii saamaxo walaalahayga qaaliga ah. marka sidaa ila socda insha Allah haddana isoo raaca ayaan idin leeyahay si aad ila karisaan qudradda. hadda dabka waxaan soo saartay sidaad arkaysaan maqliga waxaa iigu jira saliid aan soo qiyaastay. marka insha Allah saliid aan isticmaalay waa sunflower oil soo marka adiga waxaad haysatid ayaad isticmaali kartaa biidnillaahi kariim. hadda waxaan ku darsaday basal xabad dhexe oo basal ah aad uma weyne basasha aan isticmaalay. marka insha Allah walaalahayga qaaliga waxaan sugayaa intee brown iiga soo noqonayso ee basasha iiga bislaanayso insha Allah. marka ayaan ku darsanaya wixii aan ku dari lahaa. basasha weli way ii saarantahay walaalahayga sidaad arkaysaan in yar ayaa u dhiman 1 ama 2 daqiiqo insha Allah. intaana waxa waaye waan sugayaa biidnillaahi kariim inta ay si fiican iigaga bislaanayso basasha. hadda way ii bislaatay sidaad arkaysaan walaalahayga qaaliga waxaan ku darsaday karoot ama karooto hadba saad taqaanaan oo aan soo hoolay. waxa aan ku soo hoolayna waxa waaye kan lagu hoolo birta cheese-ka iyo karootka loogu talagalay. marka insha Allah waan walaaqayaa sidaad arkaysaan ama waan isdhexgelinayaa basashii iyo karootkii. intaa kadib walaalahayga qaaliga ah basashii iyo karootkii dabka ayay ii saaran tahay. waxaan ku daray haddana baradho ama potato aan soo hoolay iyadana isla birta karootka ayaan kusoo hoolay. marka insha Allah karootka waxaan u hormariyay wuu ka adag yahay baradhada oo mar waliba oo aad dheriga ama cuno aad karinayso karootka ayaad u hormarinaysaa insha Allah. sida ila socdo yacni baradhada aad ayay u bislaan ogtahay. marka insha Allah sida ayaan u dib mariyay. hadda waan walaaqayaa walaalahayga waxaan ku darsanayaa cusbo ama milix yar oo qaandada afkeeda ah. qof walba sida uu dhanaanka u jecel yahay isaga ayaa og. marka insha Allah aniga iskuma badinin oo in yar ayaan isticmaalay. marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah cusbada badanna ma wanaagsana insha Allah sida ila socda iska dhaafa milixda badan oo yacni wax yar oo yacni tastiga idin bedelo ku darsada insha Allah. marka waan isku walaaqayaa sidaad arkaysaanba. hadda waxaan ku darsanayaa wax yar oo filfil ah ama black pepper insha Allah si yar yacni waxaan rabaa si yar oo yacni kulul inuu ii noqdo oo yacni dhadhanka laga yara dareemo wax yar oo kuleel ah. marka sidaa darteed ayaan ugu darsaday. midda labaadna filfisha aad ayay u caafimaad badan tahay dhanka healthiga. marka insha Allah ku dadaala isticmaalkeeda. aniga aad ayaan u isticmaalaa filfish hadday tahay shaah hadday tahay cunada aan markaas sameynayo. marka walaalahayga sirtaa yarna qaata ayaan idin dhihi lahaa ay cunto oo aad sameynaysid filfisha ma diidayso oo waad ku darsan kartaa. haddana waxaan isticmaalayaa kaluunka daasada ama malaay insha Allah. malaayga daasada ku jiro waaye oo maar ayaan isticmaalayaa aniga. inta aan soo yaryareeyay oo aan soo jajabiyay ayaan ku darsaday. marka insha Allah waan isku walaaqayaa si ay isu dhex galaan qudradii iyo kaluunkii. marka walaalahayga qaaliga ah sidaa ila socdo goordhow waxa aan kusoo dari doonaa waxyaabihii ii haray insha Allah. ugu dambeyntii walaalahayga qaaliga ah waxaa inoo haray hadda inaan ku darsado oo kaliya barbarooni iyo basal.
basasha noocaan isticmaalay waa basal guduud soo marka midii cadaanta ahayd ma haysanin ayuu noocii aad haysatid waad isticmaali kartaa wax ee diideysa malahan insha Allah marka walaalahayga qaaliga ah marka aniga waxaan isticmaalay taa guduudan oo si yar yar aan u soo jarjaray iyo barbarooniga iyadana jeex yar oo barbarooni ah iyo xabad yar oo basal ah waaye marka waan isdhexgelinayaa dabkana wuu ka dansan yahay sida ila socdo oo yacni barbarooniga ma rabo inuu iga bislaado haddana sixnigan ayaan ku gadisanayaa qudradii aan soo kariyay iyo malaygii ama kalluunkii marka insha Allah waxaan ka gadinayaa baankii aan ku kariyay marka sida ila socdo walaalahayga goordhow waxaan guda galeynaa sidii aan cajiinkeeni idin tusi lahaa sida uu u faxay afwan iyo sidii aan u jarjari lahaa insha Allah sidii aan u dhexgelin lahaa qudradda ila socda يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل الفرقان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل الفرقان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي
بالنور الإيمان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل الفرقان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل الفرقان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان qaaliga ah qaybtii u horeysa waa kan cajiinka markii aan kala qeybiyo 10 xabo ayuu ii noqday marka ukun ayaan soo mariyay haddana ovenka ayaan gelinayaa waa kan ovenka ayaan soo geliyay walaalahayga qaaliga ah 40 daqiiqo iyo 180 insha Allah qaybtii labaadna waa tan iyadana 5 xabo ayay noqotay saxanka roundiga ah ayaan ku soo riday isagana haddana ovenka ayaan la gelin doonaa qaybtii hore ayaa wili ku jirta marka insha Allah sida ay la socda بسم الله ما شاء الله ولا عليك قالي كنتي gabagabadii sidan ay ku soo baxday ugu dambeyn roodhideeni maanta aan sameeynay ee afurka aan ugu talagalay ma sha Allah waad arkaysaan indiina ayaa idin macalin ah sidoo u guduutay aadna uu jilcan yahay ma sha Allah marka walaalay waxaan rajeynayaa inaad soo sameysan doontaan wixii feedback ahna aad igu soo celin doontaan ama aad ila wadaagi doontaan biidnillaahi kariim dhanka Instagram-ka cooking with Hayat insha Allah halka ayaad igala soo socodsiin kartaan biidnillaahi kariim إن شاء الله فيديو جينا ما انت هديات كهشي ولا بليز لايك نوصار أصحاب تاعنا لسي شرقرة وحي رأيي أهنا قيبت كومنتي يقرب أما السؤال إن شاء الله channel كنا سبسكرايب نوصار في أمان الله.